xanuun gobolka gaar ku amaaha waa xanuun guud waa xanuun Soomaaliyeed aragtida Soomaalida ee bilowday ku soconayna haddii la kala qoqobo meel la gaari mayno midnimo ayaa wax ku noqon karnaa shacabkaana sidii shalay loo garab istaagay goldolooyin ha jiraan maantana waa la garab taagan yahay بسم الله السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أديات بني سلامي أخيارتا أصحابتا قاليقا قيمها إيا قدرين تبضان ملك صدافها الدنيا داد كجوكتين وحان كسوغنا هاي مقالة شنيلة هوسبيتالكا مقالة شنيلة هوسبيتالكا ومانتا حريقا لغا جيردونها دويلة هاي رادو وحان اتاقنا هاي سودوين تمدحوينها دولة ديغانكا مدن مصطفى محمود عمر أو كوبيغان مانتا إنو يمادو مقالة إيضا حارونتا قبل كاسيتي مقالة شنيلة وحان حريقا كجيردونها دويلة هاي رادو هوسبيتالكا وين مقالة يضع هوسبيتالكا oo wax badan ka bedeli doona dhanka caafimaadka iyo dhanka shaqo abuurka ayaa rajaynayna insha Allah inay wax badan uu ka bedelo hadii Ilaahay uu yiraahdo biidni Ilaahay kariim madaxweynaha waxaan leenahay soo dhawo madaxweyne ku soo dhawo qamca furan qalbi furan iyo dad ku taagan wajiye furan ku soo dhawo magaaladaadii ku soo dhawo gobolkaagii ku soo dhawo dadkii aad u ahayd madaxweynaha dadkii aad gacanta aad u saartay kitaabka waxaan kugu soo dhaweynayaa magaaladan iyada ah ee magaalada Shinile welcome walaad ba ku soo korodhay marka deegaanada kale waa ruumay ka nasteen dhibaatooyinkii laakiin city dadka jooga 3 sano barkii u dambeeyay dhimasho iyo barakac iyo dhaawac iyo dagaal yaa ku socday yaa socday oo ogtihiin marxaladaasna siyaalo kala duwan xukuumaddu way qayb qaadatay inay wax ka qabato waxa lagu guuleystay way jiraan waxa laga gaabiyay way jiraan laakiin guud ahaan waxaan hadda diyaar u nahay inaan wajahno oo wixii dhinaana aan israacino oo ugu horeyso dibadejinta dadka soo barakacay iyo wax u qabadkooda in xoogga la saaro ta ugu horeysa taa weeyaan waxa ku xigtay in la sii xoojiyo lana sii adkeeyo difaaca dadkaas maadaama dibadejin rasmi ayna dhici karin iyadoon ammaan haysan marka in ammaankooda la sugo isla markaana dibadejin rasmi loo sameeyo oo cid walba oo naga caawin karta aan la kaashanayno ayaa loo baahan yahay waxa kale oo loo baahan yahay xal waara in dadkaasi ay helaan xalka waara wuxuu noqonayaa aakhirka xal siyaasadeed adduunka dagaal iska socda oo dagaal ku dhamaada ma jiro dagaal walba wuxuu ku soo dhamaadaa wada xaajood iyo xal waara in la helo marka xal waara oo dadkaasi rafaadkii iyo dhibaatadii haystay ay kaga nastaan caruurtooda waxbarasho ku yeesho dadka ay kula sinmaan dad jira ay u noqdaan dhibaato dambana aanay ka soo gaarayn in la helo ayaa waajiba kaana insha Allah hadii alla yeesada qorshayaashiisi waan bilaabaynaa waxaan dib u dhigaynaa maaha waxaan aad iyo aad ugu amaanaynaa dhammaan odayaasha iyo waxgaradka gobolka oo si balaaran iyaguna uga qayb qaatay in dadka walaalahooda ay taakuleeyaan wixii tabar ay u waayeen mooye waxaan odayaasha waasku ugu horeeyo ku amaanaynaa sidii had iyo habeen ayna iyadoo dawladda sidii iyadoo dawladda oo kala ah ay shacabkooda uga warhayeen ay isu xilqaamayeen aad iyo aad ugu amaanan yihiin runtii garab weyn oo inoo ahaayeen waxaan ugu baaqaynaa cid walba oo tafaaful ku furaysa arrimaha noocaas inay ka fiirsadaan midnimada shacabkana xilli loo baahan yahay oo maanta aan uga baahi badanahay ma jirto marka in shacabkana iyo dhalinyarada gaar ahaan dhibaatooyinka soo dhacay awgeed inaan looga faa'iideystan oo dad siyaasiyiin ayna midnimada ummadda idinka wiiqina gaar ahaan gobol ahaan waa ku dardaarmaya arinta بريتو لهدي الله إذا وحن قرشين إن أنا نصاب وقرنا ذاتك بركة عياشها يدوك أي شوجين وحرجين هالكار معلومات كوساب سمع على وباينين يقاف أفكر أيان إن نسوق عنه حاولوا أم بلابي دون نويش لأن دوان هدي الله إذا أنا ولا كعشان إنما أمولا يا عياشة يا شعب كإنتبه مركو حنا مسنا انتهافي عن مرينو مركا يكتو دالك وحو صامر يصدح سنية بركي ودن بيسي إنك مشكلة دوين إنك سوق قاعدي وحاسو علاضو كسعودي دالكو أرنت قلبيت كسيتي باهي هاوران كارنا رنتي وان ماريني سيفي عبانو أصوى ماريني حالة دي جرتي إن علاضيه دالك كسعودي أينينا سامين لكن أرنت قلبيت كسيتي نسيب دارو مادام أرنت ديغانا كلا إنو جيني سيأهيد وحي نقطي أرن إنك سوق قاعدي
waxyaalaha guud ee ka dhacaya dalka haddana waxaan u baahannahay inaan ka gaashaamanno oon diyaargarowno oo sidii looga bixi lahaa ee xal siyaasadeed iyo mid amni iyo mid nololeedba loo heli lahaa in laga fikiraa loo baahan yahay maanta waan joogaynaa magaalada odayaasha dhaqanka oo ugaasku ugu horreeyo iyo waxgaradkaba fursadaan siin doonaa haddii aan leeyahay afkaartooda iyo talooyinkooda aan ku dhegaysanno si ay qayb uga noqoto xalka guud iyo qorshaha guud ee maskaxda aan ku hayno ugu dambayn waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay munaasabadan maanta inay ku soo beegantay xilli cadowgii juntaaga ahaa ama juntaa hadda way dhaaftay oo koox yar juntaa macnaheedu waa koox yar oo kooban oo rabta inay talo marorsato weeyaan laakiin hadda waxaa la odhan karaa juntaa way ka gudubtay waxaa la odhan karaa waa koox wax ka badan koox ama axfaashi waxaa lagu yidhahda tigraay waraari hayl baa la yidhaha waxaa weeye duulaanka kooxda lama odhanaye duulaanka tigreega maaragtay ayay hadda maraysaa duulaan dhan oo isku raaceen oo la socdo ayuu u muuqdaa hadda walow de shacab dhan aan israacin karayn laakiin haddana qaabka hadda uu yaallo qaab koox ku eg ma aha marka duulaankii noocaas ahaa ma ahayn mid ay deegaankooda xuquuq ugu raadinayeen waayo deegaankoodii way joogaanba waa laga soo baxayba waad ogtii ciidankoodu ka soo baxeen marka waa koox yar oo ku xisaabsamaysa inay dhaqaalaha dalkan iyo xoolaha dalkan yaalla iyadu maamusho 7 sannadood waxay ahaayeen koox yar oo dadka dhaqaalahoodii hadday Oromo tahay hadday Soomaali tahay hadday Axmaar tahay hadday Koonfur tahay dhul barwaaqa iyo dadyo farbadan dhulkoodii iyo xoolahoodii ku taajira wey marka laguma karayo gobolkiinni iyo aaggiinni xuquuqdiinni wixii ahaa qaata oo jooga laguma karayo waxayna aaminsan yihiin awood military iyo xooga inay ku qaadan karaan awoodaha noocaasa ama ay danaha noocaasa ku heli karaan kooxdaas inaan meel uga soo wada jeesanno danteenna ma wadaan waad ogtihiin gobolkan city maanta dhibaatadan aan la daalaadhacayno iyagaa abuuray waad ogtihiin idinku waxay ku bilaabeen markay dhulkan soo galeen haddaan iminka gobol uga warramno qoladaasi dhibaatada ay dadka Soomaalida u geysatay wax la soo koobi kara ma waxaan ogahay anuu waagi ugu horreysay yimaadeen halkan dagaalkii ugu horreeyay shacabkii halkan bay la galeen magisi iyo dhulkan iyo wixii ka socday waad ogtihiin dadkii ay ku leynayeen iyo dagaaladii bilowday waxay ku dhammaatay sheekadii in magaaladiina ay dadkii ka farmurujiyaan waxa laga yaabaa haddii kooxdaasi talaxumadii ay samaysay ayna dhici lahayn xafladan maanta inay dardaba dhexdeeda ka dhici lahayd baa dhici karta oo xarunta degmada Shiniile ay dardaba ahaan lahaydba baa laga yaabaa waa laga soo gudbay waxay gaadhay dhulkii haddana dad dhan la wadeejiyo oo raalli ahayn oo xoog cid kale gacanta loogu geliyo marka kooxdaas cidda maanta u sacabtumaysa cidda Soomaaliyeed wadda inay ahayn waxaan u malaynayaa waxgaradka iyo odayaashu way og yihiin laakiin dhalinyaradu wax ku baraarugsanaato cadow Soomaaliyeed oo taariikhi ah oo dhina dhibaateeyay weeyaan kooxdaasi haddaad dhaafto gobollada hoose xasuuqii ka socday waad ogtihiin 7 sannadood beegsigii lagu hayay gobollada hoose ee muxuu ahayey aad la socotaan dhibaatooyinka loo geysto waad ogtihiin kursigii barakicintii iyo dilkii dhibaatadii lagu hayay waad la socotaan marka ma aha koox maanta wax aan isku darsan karnaa inagu sidaa daraaddeed kuwa u adeegaya kuwa heshiisyada la gelaya kuwa dabada gelinaya kuwa innaga danteenna ka shaqaynaya ma aha waa inaan iska dhex saarnaa waa inaan la soconnaa waxaan aaminsannahay qalalaasayaasha siyaasadeed iyo kuwa dhaqan ee hadda la wada ee la bilaabayo inay kooxdaasi fangarayayso dabada ka riixayso ayaan aaminsannahay waxaan u baahnay arrintaa inaan ka taxadarno ugu dambeyn wixii fariime ee ku saabsan galbeedka city berritooda haddii la yidhaha markaan dadka soo aragna kadib yaan ila wadaagi doonnaa waxaad ku kalsoonaataan in mar walba aan diyaar u nahay mas-uuliyadna saaran ay tahay xukuumad ahaan dadkaasi dadka iyaga inay yihiin in la xusuusiyo dee xaq baad u leedihiin oo gobol kastoon tagno markaanu tagno muxuu ahay liibaan ama markaan fiiq tagno ama markaan wardheer tagno dadka halkaa joogaa baahidooda iyo tabashada shacabku inala socodsiiyaan dadka city joogaa markaa kuma khaldana xukuumadda inay ku canaantaan maxaa wax loo qaban la'yahay kuma khaldana inay attention ku soo jeediyaan dhibaatooyinka dadka haysta laakiin in laga dhigo dad gaara oo annagu in aanu u soo nimaadno muxuu ahay ay favor tahay in laga dhigo oo loo arko maaha dadka waa dadkanagii waa shacabkanagii
وأقوى المسؤولية وهي نويان سائل لوجا هذا مهمة هدي حنون كل رعية براكعين حنون كأنك نقول هايستا حنون أنكار كان همه حنون قبل كجار كوا أماها وحنون جود وحنون صوماليات أركتيرا صومالية إن بلوني كوسو عنينا هدي لك قوة ميل الجاري منه مدنمو أيام حكون نقول كرنا شعب كان سيدي شلب الوجر بيستاجي قلت له هجران ما أنت ولا جرب تاجين أمن يوجا ديبتجين تودا نلوش يودا مسؤولية وحقائق حكومة الديان كصومالية وأنا مسنا بقولك بقولنا كصبيح دونه بعد ما هالسنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.